صاحب يا الواحد كسور دواتان شيكada la magacaabay halgan iyo hagardam qaybteedii koowaad hadaba dhacdada waxay iga sheekay saaxiibkii naftiisa tamaan dheer hadaba aan idin kala baxay idinkii tamaan dheer waxaan ka raacay jabada meel la dhogyaala madow oo ka tirsan degmada dhagax madow ee gobolka Jab ninkii garan baa garane ragga raacay waxa kamid ah Maxamuud Dheer oo hadda nool Xamdiye Raabdi uu shida Allah naxariistay iyo sidoo kale Badar Sargaar oo isku nool waxaan qaybta duufaani ka geli jirtay gobolka Jab kamid ah 6 bilood kadib waxaa la bedelay qaybta korkoray ka geli jirtay dhanka galbeed ilaa aan gacanta cadowga 2004 bishii 6 sanadka uu ka duwanaa sanadihii kale loo nabiyay sanadkii madooba waxaan dhaawacay 5 jeer waliba 5 dhaawac mid baaban ah oo firdhiskiisu aad u badnaa hadaba dhacdada duruucda oo ah sheekada ayaa waxay dhacday 2013 bishii 6 goobta ay dhacdadu ka dhacday waxay ahayd meesha la dhaho Malqaqa wadada leelkeeda tuuladu markaa ma aysan jirin waxaan markaa ahaa taliyoon laakiin waxaan hawlgelinayay koox oo waxaan maqnaa taliye kooxeedkayga oo ah abiibooday Allah u raxmee waxaan u kala hawlgeliyay 3 joog taleefanadan waan isticmaalaynay maadaama aanu galbeedka joognay khadayaan heli jirnay laakiin waxaa loo dhiibi jiray hawlgeliyayaasha ciidanka waynu qaybta 2 saacadood